السلام عليكم مرة على مركز مقشة كونفورت أمريكا من لاتين أمريكا وحقو هريني هذا كوسو داعي وحويا كبدا عقتها ميسي نيمار بيلي مارادونا بوغا جونيورز برازيل كوبا أمريكية والكاب بونكيو كيما هو وين أمازون برازيل شراب كارتنتين أما مخدرات كدراغس كولومبيا دينو دال دراغس مرة على مركز مقشة ما كاك سوكرا وحكو سو داعي بابلو اسكوبار كان حسدو هنا كوغا تاجري دراغس كلا دوان وانا لا شو دنك كولومبيا oo Pablo Escobar kaas marka degtay taariikhdiisa waxa tusaale cad u yahay xaaladda rasmiga ee ka jirta wadamada Latin America dhaca boobka mukhadaraadka iyo drugska kala duwan gaangiska kooxaha tuugada ee hubaysan iyo sidoo kale faqriga iyo wax la'aanta baan ay ku sugan yihiin bulshada reer Latin America ku darso daliilka maalayacniga ee dhayl uga dhaca wadamada qaaradaas heer waxyaabaad aad ka walaga habaysa ay kamid yihiin in wadanka El Salvador la sanadda 2017 May taariikhda markay ku beegneen in wadankaas ay ka dhaceen dabaaldegi iyo waxaan isu imaatin aad u weyn dadkuna aad ay faraxsanaayeen maxaan la faraxsanaabay kula tahay taloomaydoodii bay ahayd dalkaas dandacal la ka dacal maxaa saas oo lagu dabaaldegay badboodisa waxaad ma la saabay filayna tahay maalinta qarannimada ee wadankaas bise talo waxa maqleen arooskii fadhiye kadibna la Salvador baa loo ka dabaaldegaya laakiin sababta rasmiga maalinta loo dabaaldegay kaliya taa waxa ka soo wareegay 24 saacadood dilkii ugu dambeeyay wadanka ka dhaca yani 24 saacadood baan wadankeena aan cid lagu dilin waa farxad عرض بسم الله الرحمن الرحيم صعبك يعني حالات داس أي بيجارسين دولها لاتين أمريكا سبحان الله سؤال شنو هذا بيسودنا وحويا محا قارة لاتين أمريكا أيوة تاهي قارة هذا فقيرة فضلا هديت نقول صبتاي نقول صبر هذا سبسكرايب تابعنا مقال كان أنا الله يقرأ ونسي شير قرأ أصحابتي الكسي اللي جوا ده فايديستو كسر مقال كان مانتا كسر في حد قال لعقيد الدونيسو نمبر كتلا صومئة صدني كو صدن يلبا أما بصمتها شن فورسجاشن يكو صرف لها ألفا رموت كصرف لها شيء إلكترونيكا قررنا قبلنا نصفان لها وقبل خطرة جبان كي تقانا هاي سكولي وإنما قررنا ولا تعادوا قبل كابس موقت السيد لبدا قاردود ee North America iyo South America in labada wadan ee kaliya luqadda Ingiriis laga hadlo Canada iyo Mareykanku ay yihiin labada wadan ee ugu ladanba harkad ka timaada Mareykanka Mexico soo gaadho baliya baas baad faraha la soo gashay nolosha xaqiiqatan ku nool yihiin dadweynaha ku dhaqan oo wadamada Amerikada dhexe iyo Amerikada koonfureed ama Latin America wana aad u hooseysa wadanka yar ee koonfurta Kuuriya uu ka dhaqaale weyn yahay dhammaan wadamada ku yaala qaaradda Latin America isagoo oo masaxa هاني بدهان ونقمية قبل ير أو كترسن ودن كبرازيل يدو قارضة تنضع الله كدع على يكون دوجيهن نمعوين أهدوا ترى بدنا الله سبحانه وتعالى على نحرقي وحويان وحي أي دولة دي كهر مر لهاي دمانتي هذين نقطة دول برشة يا هذين نقطة قوة الحيسون دونيدا أنت هذا كلها بيراتي كبور ما شاء الله تبارك الرحمن بل لا قوها كوانا من مرة قار كل حمود ثاني فوتوشوبيين أو كون باهم قاعدين ست قروح يجمال وحيك قبعان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الموجودين إن ودمنا لاتين أمريكا هاي ودمنا يجوا الدنيا حرية دوده هلا يجوا قرني قصة قال يتمنى بديدود حرية دوده كقاعدة ودمنا إسبانيش كه هي برتغاليس كه وقت جالسها وقت جبرج النحية ودمنا أفريقيا قوميسكو كبرى أيام دولتنا ما تكشكين إننا أنتوا حرية دوده قاتهم بلا بين إن تلكود الاستاد دولة جارها سمستان وقاست وحلوس هذا لين دولتنا أيام دوران مستقبل الإفيا أصلا تاريخ التاسع ما يدعين قارة لاتين أمريكا قارة آد كيسو شبهان وقارة أفريقيا ولبدن قارة waxay kamid yihiin laba shay labadaba koow waxay kamid yihiin dadka ku nool yihiin dad sabool ah laba shay kamid yihiin waxa weeyaan in qaaradahan ay yihiin labada qaaradood ee dunida oo dhan ugu hantida badan ee Allah subhanahu wa ta'ala hantida dabiiciga ah dhigay haday noqoto batrool iyo haday noqoto beer iyo haday noqoto macdanaha kale ee kala duwan hadaba su'aasha isweydiinta waxa weeyaan labada qaaradood sida qaniga u ah maxaa dadkooda saboolka ka dhigay simbali jawaabtu waxa weeyaan corruption ka iyo sidoo kale wax istaba marinta iyo dawladahaas dadka xukumo oo aan daacad ahayn oo tuug ilaahay ka gooday heer wadamada Latin America askar dhan aad kula luushi karaysa $1 oo kaliya waxaad rabtaan oo kuugu sameyn karayo su'aalan isweydiinay wadamada Latin America ayaa u sababa in corruption-ka iyo waxa weeyaan fasaadka dhaqaale heerka u gaaro oo ma cid kale shaydaanka adduunka Mareykan baa sabab u ah in waxa weeyaan wadamada Latin America xaaladan ay ku sugnaadaan dagaalweynaha adduunka labaad wadanka Mareykanku waxa ku gaashanaa sanad aanay wadamada kale ee
adduunku ee ay wada dagaalamayeen aanay ku gaashaaneen sanadaasina wax kala ma hayna waxa ahayd wadanka Mareykanka dhulkiisu waxa uu ka fogaa frontii iyo goobtii dagaalku ka soconayay si aan dalkiisa burburka iyo dagaalku soo gaadhina waxa uu sameeyay xeelado kala duwan waxa uu yiri waxaan iska mashquulinaya wadamadan Latin America igu agdhow oo iyagayaan la soo marin Canada noqotay Canada waa wadan aan waxyaabo badan iskaga midnahay simbal waxaan oran karnaa waa koobigii Mareykanka saadaraadad iyaga cabsi kama qaba laakiin waa inaan meel iskaga tiriya wadamadan kale ee Latin America sidaas daraadad Mareykanku waxa uu isticmaalay siyaasad ah in uu khalkhal geliyo amniga iyo ammaanka wadamada Latin America oo iyagu ay noqdaan kuwa isku mashquulsan halkii isaga ay ku mashquuli lahaayeen dagaalweynaha adduunka marka laga yimaado arrintan dii sheegay waxa tusaale cad ah dagaalkii Mareykanku kula jiray waxa weeyaan ganacsadihii drugska ee loo oran jiray Pablo Escobar ee markii uu tolo sheegaynay waxa la sheegay dadweynaha ugu badnaa ee uu ka iibin jiray drugska mukhadaraadka inay hayeen dadweynaha Mareykanka halkii uu Mareykanku waxa weeyaan uga hortagi lahaa ninkan ganacsigiisa inuu xakameeyo drugska soo galay dalkiisa ka hortago dadweynaha waxa weeyaan qabatimay mukhadaraadka drugska waxa uu sameeyay siyaasada inuu Pablo Escobar kula dagaalamo wadankiisa Colombia oo uu duulaan ku qaado isagoo u adeegsanaya askarta oo kale ciidamo uu leeyahay kuna dagaalamo ninka wadanka Colombia dhexdiisa sabab ay Mareykanku arinta taas u sameeyay sababta waxaad ku garanaysaa markaad aragto natiijooyinkii ka soo baxay dagaalka Mareykanku ku qaaday Pablo Escobar markaad aragto tirada muwaadiniinta reer Colombia dagaalka kaasa ku dhimatay markaad aragto muddada inta eeg ee wadanka Colombia dagaalka aadka u baariyo ka socday markaad aragto intaas kaliya Colombian ay ku nafweyday dagaaladii ay kula jireen waxa weeyaan gaangiskii iyo waxa weeyaan ciidamadii hubaysnaa ee uu lahaa Pablo Escobar arrintan waa sida adigoo haysta neefka arigaana doonay inaad barayso oo gowracato laakiin si iska diidan in gurigaagu ka wasakhobo simbalan inta dibadda u saarto dhigii uuskii waxa weeyaan neefkaaga kaga hor yimaada qofka kula jaarka ah ee guriga kugu xiga hortiisa Mareykanku soo ilaaliyo amnigiisa iyo ammaankiisa waxa uu khalkhal geliyay wadamadan Latin America amnigooda gaangiskan hubaysan kaliya takimi jiraan wadanka Colombia laakiin si waxay ku baahsan yihiin dhammaan qaaradda Latin America adigoo arkaya goobo iyo waxa weeyaan gobollo iyo xaafado dhan oo aan xataa dawladdu waxba ka qaban kareyn oo nimankan ay iska maamushaan dilku kababi ah lama aha adigoo halka maraya mid kamid gaangiska waxa weeyaan waxaan ku helay qaabkaaga soo soconayso after that uu ku tuujinaya waadiya waxa jira oo qaabkiisaan ka helinayo meel arkaynayo waa wallahi sir qaab daran buu soconay wuxuu وانت سكت شيء تهاني لا ay tuugada ka jirtana hadalkooda ba hada iyadoo bulshadu arintan iskala qabsatayba adigoo arkay ilmo yar 7 jir ama 8 jir ah aybaad koranaysaa mustaqbalka maxaad noqonaysaa qolay in la kartaa macnaheedu waxa weeyaan waxaan doonayaa inaan noqdo mid kamid ah gaangiskan mustaqbal ifayaan doonayaa oo gaangis baan doonayaa inaan noqdo iyadoo arkaysa dadka u dalxiis taga goobahaas in lagu oranayo meel heblayaha tagina dawladii baa kale waayo noo amnigiina halka kuma sugi karayno oo waa khatar bismillahir rahmanir rahim sadaradeed markan kana mas'uuliyadda ugu weyn iska leh oo soo wadankiisa amnigiisa ammaankiisa u sugo waxa uu khalkhal galiyay wadamada la jaarka amnigooda waxaan u isticmaalay hab ah in wadamada uu ku baahiyo aqoon darrada iyo jahliga sidoo kale mukhadaraadka daraagiskuna ay noqdaan bayda meel walba laga helayo sidoo kale maamulka iyo madaxda wadamada ka talisaana waxa weeyaan madax waxa weeyaan urayso oo ka bacday oo waxa weeyaan dani muraatoon aan dadkooda ka lahayn ee kaliya ta waxa kursiga ugu fadhiyaan ay tahay danahooda gaarka ah inay ku fushadaan tusaalaha wadanka Venezuela waa wadanka haysta kaydka ugu badan ee batroolka xataa waxa uu ka batrool baday wadamada Sacuudiga iyo dhammaan wadamada khaliijka oo la isku geeyay haddana waxa weeyaan wadamada adduunka ugu faqiirsan mid ka mid wadanka kale ku xigay Colombia adduunyada bunka la dhoofiyo 12% buu kaligii dhoofiya iyadoo saas jirto haddana waa mid ka mid ah wadamada adduunka ugu faqriga iyo amni darrada badan wow mara qaaradan Afrika badhaata waxay qaaradan waxa weeyaan hogtee baad ما wadamada qaar way iska wanaagsan sida wadanka Brazil oo kale madaxweynahooda Lula da Silva waxa weeyaan ay lagu magacaabo waxa la aabaha fuqarada yaani wadanku halkii uu joogay waa uu ka soo kaxay meel wanaagsan baanay maraysaa hadda Brazil halka wadanka Uruguay caasimadiisu tahay Montevideo wadanka u dhashay Suarez Cavani Diego Godin Diego Forlan iyo Nunes hadda Liverpool u ciyaara wadankaas waa wadanka xagga corruptionka iyo fasaadka dhaqaale ugu yar qaaradan looguna qaatay taas waxay keentay inuu noqdo wadanka
halka waxa weeyaan jahliga ugu yeeri ka jira ee qaaradan oo dadyooga waxa weeyaan ku nool xagga qoriinka wax akhriska qaarada America markan isbahan percentage ahaan wadamada kale la barbar dhigo oo wadanka ugu wanaagsan saas lamida boqolleyda wax ma haysatada iyo dadka fuqarada wadankaas ku nool aad bay uga yihiin wadamada kale ee qaarada Latin America marka la barbar dhigo bartamaha iyo koonfurta America waa dhul Allah subhanahu wa ta'ala u dhigay nimcooyin aad u tiro badan hase ahaatee dadkii ka faa'iideysan lahaa aanay ku nooleen dawladaha haastay xukuumad dad iyo madaxa aad u liita oo kuwinan Afrika in haysta la mid ah oo hadaanay kaba sii daray muuqaalkan halkaas ay nagu eegay hadda nagu cusubta nagu soo biraado subscribe tabanaya YouTube channel ka hadda naga daawansada Facebook page ka naga daawansana nagu soo biraado page ka la garanaya muuqaalkan kan ahna si share gareey si dadka ugu badan ay uga faa'iideystaan muuqaalkan muuqaalka xiganta isugu ma doono muuqaaladeeni hore si daawa kan ama kan hadba kiya doonta labada muuqaalba waa kala arag waa inoo muuqaalka xiga nabaday السلام عليكم